Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ka cafiyay guud ahaan deemihii uu ku lahaa. Zakariya Maxamed Salaad haynoo soo koobo warkan. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto iyo siihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa kala saxeexday heshiisa laba geesood ah kaas oo lagu dhimayo dibna loogu qaabaynayo deynta Soomaaliya ay ku leeyihiin saddexda hay'adood oo dawladda Mareykanka waxaana heshiiskani goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ka cafisay qaybtii uga aadanayd deyntii dalalka naadiga Baareys ku midaysan. Cabdiraxmaan Ducaale Beele siihayaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in wadahadal dheer kadib in dawladda Mareykanka Soomaaliya ay ka dhaaftay deyn gaaraysa 1.4 bilyan kaasi oo qayb ka ahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aanu joogno in aan saxeexno heshiiskii inaga iyo Mareykanka ka dhaxeeyay ee deyn cafiska. runtii si aad u ogtihiin tallaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday. arintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generalka ahaa la soo sameeyay. America waxay qayb ka tahay hormoodna ka tahay Paris Club qolada la yiraahdo ay qayb ka tahay iyagaana hormood ka ah. ayaga discussion weyn ma la galay Mr Prime Minister discussion ka 31 bishii March ayaan la galay. dabeetana waxa la gaaray general reduction in la sameeyo billion iyo 400 milyan ay naga daayeen isla maalinta. waxa dabeetana la isla gartay in dawlad loola hadlo wadanada dawlad loo tago. marka dawladii bay tani markaa ka socota. dawladda America, dawladda Spain, dawladaha qaybta ka ah Paris Club ayaan marba dawlad la hadlaynaa. mar dawlad walba sanad waa saxan doonaa. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo goobjoog ahaa heshiiska ayaa dawladda Mareykanka uga mahad celiyay deynta waxaana uu sidoo kale bogaadiyay safiirka Mareykanka sida ay markasta u garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. marqaatiga ka noqday saxiixan oo deynta loogu cafinayo Soomaaliya marka koowaad dawladda Mareykanka United States of America way ku maasantahay always supportiga ay nasiiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan markasta inay garab istaagaan especially ambassador Donald Yamamoto oo noo aad wax badan uga qabtay Soomaaliya hari habeenna garab taagan isaga loo kumansan yahay. sanadka soo aadan ayaa lagu wadaa in Soomaaliya guud ahaan laga cafiyo deymaha lagu leeyahay waxaana intaasi ka horeynaya inay buuxiso shuruudaha ka dhiman deyn cafinta Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u wareegay xilkiisa kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta si rasmi ah xilka kula wareegay munaasabad ka qabsoomta xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib markii 23 bishan ay codka kalsoonida ay siiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha Maadi Maxamed Guulad ayaa ka warbixiyay shaqooyinka muhiimka ah oo ay soo qabteen golihii wasiirada. inaanu kugu soo dhaweeyno xafladan xil wareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqada sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xil wareejina waxqabadkii dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu sheegay inuu xoog saari doono arrimaha mudnaanta iyo hortobinta u leh xukuumaddiisa kaasi oo ay ka mid ka yihiin amniga, doorashooyinka, horumarinta dhaqaalaha, cadaaladda iyo adeegga bulshada. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa xusay inuu soo magacaabi doono qabiir dhanka sharciga ah kaasoo baaris iyo dabagal ku sameeya tacadiyada jinsiga ah ee lagu la kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed. hadduu Allah subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dawlad tayo leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed. si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay. waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu wala shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka.
waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hanaanka doorashada ee la isla ogol yahay. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa 24 bishan war qoraal ah u soo diray ra'iisul wasaaraha cusub kaasoo kaga dalbanayo inuu isaga xilka ku wareejiyo maadaama sharciga sidaas dhigayo hay'adii sidaas ma ay dhicin oo waxa xilkaasi wareejiyay Mahdi Maxamed Guuleed oo si haye ahaa isla markaana ra'iisul wasaare ku xigeen ka ahaa xukuumadii Xasan Cali Kheyre. dad badan ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay in Mahdi Guuleed oo xilka ra'iisul wasaarenimo wareejiyo isagoo xamar jooga ra'iisul wasaarihii xilkaasi ay golaha shacabka ka qaadeen. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sharci daro ku tilmaamay habka xilka loogu wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya kadib markii maanta munaasabad lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Cali Cilmi Salaad hayno soo koobo warkan. kadib markii maanta uu xilka la wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa arintaasi waxa ka hadlay siyaasiga mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sharci darro ku tilmaamay in xilka uu wareejiyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka isaga oo magaalada Muqdisho joogo ra'iisul wasaarihii hore u hayay xilkan. sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa hadalkiisa waxa uu ku daray in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu isaga hore u balmaray sharciga iyo dastuurka dalka u yaala balse waxa uu sifo sharci darro ah uu ku tilmaamay xil wareejintii maanta ee siyaasadaha ra'iisul wasaare ku xigeenka. waxaad la socotaan in xilkii ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay maanta isku wareejiyeen siyaasadaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo ah mid dastuurka iyo sharciga intaba khilaafsan. sharci ku tumashadaas iyo dastuur jabintaasna cidda odayga uga ah dalkan uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaad ogtihiin in ra'iisul wasaarihii hore xilka laga tuuray oo codsaday inuu xil wareejinta asaga sameeyo oo si rasmi ah codsi u dirsaday. waxaad ogtihiin dastuurkeena ku meel gaarka ah madaxweynaha wuxuu ku leeyahay waa inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha ee uguma taalo qodobna kuma qorna inuu ku meel gaar ama si haye xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabo. saas daraadeed si haynta xilka ra'iisul wasaaraha waxay ahayd mid sharci darro ah dastuurkana lagu jabiyay. xilka suuristii ra'iisul wasaarahana waxay ahayd mid sharci darro ah oo dastuurka iyadana lagu jabiyay. in ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray oo dalbado xil wareejin loona diido iyadana waa mid sharciga iyo dastuurka lagu jabiyay. taasoo ay markhaati ka yihiin hay-adihii kale ee federaalka sida baarlamaanka ama garsoorkii intaba ay ka mashxaradayaan oo ay ka allaasiyaan waa ayaan darro dalkeena soo wajahday. waxaase wax lagu cibro qaata mudan in ra'iisul wasaaraha xilka laga tuuray oo qayb ka ahaa sharci jabintaas iyo dastuur ku tumashadaas. geesta kale waxa uu tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in su'aal weydiintii xalay ee dadka Soomaaliyeed uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska indhatiray sida uu hadalka u dhigay. sidaad ogtihiin madaxweynaha su'aalo taagan oo xaaladda dalka ah ayuu dhammaantood uga baxay jawaabteeda ma hayo ma ogi weydiiya gole hebel iyo shakhsi hebel. madaxweynaha 3 sano iyo bar ayuu naga dhuuntay oo aan ka weynay dood fagaaro inuu yimaado golayaasha dadka Soomaaliyeed oo kula hadlo shacabka oo la hadlo yaan ka weynay. ayaan daradii ugu weyneed waxay tahay xalay markii uu hor yimid oo ugu horeysay oo shacab Soomaaliyeed soo hor fadhiistay oo dood furan la galay in asagoo taagan oo shacabkii ka dhuuntay maadaama uu su'aalahoodii yiri ma garanayo kamana jawaabi karo. Soomaaliyeed kuwa badan oo madaxweynaha la mid ah ayaa saf ugu jira raadinta xilka sare ee dalka. kuwa badan ayaa u gabisan waxyaalaha ay keentay siyaasad loo soo dhuunto oo hoteelada loogu xiran yahay oo daqiiqada ugu dambaysa loo soo dago oo aan la aqoonin aragtidaada iyo halka u jeedo iyo talada dalka halka ay geynaysana waa noocaas. maamulka Galmudug ayaa digniin u diray hay'adaha ka shaqeeya deegaanadeeda kadib markii lagu eedeeyay in ay fargelin ku hayaan dhismaha golaha deegaanka ee Galkacyo. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan cadaado inooga soo diray. wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah maamulka Galmudug ayaa qoraal soo saartay waxay uga digtay qaar ka mid ah hay'adaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala qaybo ka mid ah Galmudug kuwaas oo wasaaradda ay ku eedeysay in fargelin ay ku hayaan hawsha doorashada ee golaha deegaanka magaalada Galkacyo gobolka Mudug ee Galmudug.
waraaqda ka soo baxay wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga galmudug ee loo diray dhammaan hay-adaha ay qusayso ayaa loo sheegay in si adag loola xisaabtami doono hay-ad walba oo ku lug yeelata doorashada golaha deegaanka magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga galmudug ayaa sheegay inay jiraan hay-ada dhibaato xoogan ku haya sameynta golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa sidoo kale warad ka soo baxday wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug lagu sheegay inay si dhow la socdaan hay-ada ku mashquulsan aysan wax doora ku lahayn taasina ay keentay in calqalad xoogan lagu sameeyo golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug digniintan ka soo baxday wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee galmudug ayaa ku soo aadaysaa xilli ay meel gabagabaha marayso sameynta golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaana dhowaan sidoo kale warqad cabashaha soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha galmudug taas oo uga caawinayso faragelin ay wasaaraddu sheegtay in lagu hayo sameynta golaha deegaanka magaalada gaalkacyo oo ay ku lug leedahay qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala deegaanada galmudug xasan axmed maxamed reedi kulmiye cadaado maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ayaa maanta xukun ku riday rag ku eedeysnaa inay ka dambeeyeen dil ka dhacay magaalada garoobe cumar maxamed soomane saddexdan nin ee loo haysto in ay ka dambeeyaan dil magaalada garowe 5tii bishii maarso 2019 loogu geystay marxuum liibaan cabdulqaadir jaamac ayaa maanta ka soo hormuuqday xarunta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal iyadoo xukun lagu riday ragga la soo eedeeyey xafiiska xeerlaalinta gobolka nugaal ayaa saddexda nin ku soo eedeeyey in loo haysto dilka marxuumkaasi waxaana ragga maxkamadda la hor keenay ay kala yihiin maxamed cali muuse jaamac cabdi ciise iyo cabdinaasir cabdi maxamuud kuwaasoo dhammaantood xeerlaalinta gobolka nugaal uu ku soo eedeeyey in ay ka dambeeyaan dilka marxuum liibaan cabdulqaadir jaamac siciid xasan maxamed oo gacanta ku hayay kiiskaasi ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ay ka gaadhay ragga maanta la hor keenay xarunta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal cabdinaasir cabdi maxamuud ina yurub daahir 11 sano jira jaamac cabdi ciise ina aamino xaaji cabdulaahi 30 sano jira maxamed cali muuse ina siciido cali 34 jira waxay maxkamaddu ku xukuntay 100 halaad oo ah magtii liibaan cabdulqaadir maadaama qasaamada hal qof ka badan aan dil loogu xukumi karin saddexda waxaa lagu xukumay 100 halaad oo magtii liibaan cabdulqaadir ah midkiiba wuxuu helayaa 30 halaad iyo dalool waxay kaloo saddexdaa maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 3 sano oo xabsiya racfaan baa ka furan 30 cisho ah kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xafiiska xeerlaalinta puntland kan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal iyo ehelada labada dhinac taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta kormeer ku sameeyay xarumaha ciidanka booliiska ay ka degan yihiin magaalada Baydhabo Axmed Cabdiqaadir Yarow ayaa warkan inoo soo diray taliyaha ciidamada booliiska ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tagay xarumaha saldhigyada booliiska ee maamulka koonfur galbeed uu ku leeyahay magaalada Baydhabo sidoo kale baraha kontarool ee ciidamada booliiska ay ka ilaaliyaan magaalada Baydhabo taas oo 10 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo kadib markii uu soo kormeeray saldhigyada iyo baraha kontarool waxa uu warbixin ka dhageystay taliyaha qaybta booliiska koonfur galbeed Soomaaliya Jarnaal Cabdi Dheere waxaan maanta taariikhdu ay tahay 27 bishii 9aad waxaan kormeer ku maraynaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed kormeer ku maraa magaalada Baydhabo ruugaha ay booliiska ka degan yihiin saaka kormeer sanadada waxaan ku soo marnay waxaan hadda joognaa rugta wadajir ADC-da waxaan soo marnay rugtii Hanaana 2 waxaan soo marnay meesha la yiraahdo Maayafuulki barwaaqo aduu in badan taliye qiimaantaada iyo kormeerkaaga iyo waxay ahaday ku soo dhow taliyaha ciidamada booliiska ee dawladda federaalka Soomaaliya Jarnaal Xijaar ayaa isaguna waxa uu dhankiisa ka hadlay kadib kormeerka isagoona ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay ciidamada booliiska koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa Baydhabo oo uu sheegay inay yihiin kuwa naftooda u horay sugidda amniga guud ahaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku hareeraysan saakana waxaanu bilownay inaanu soo kormeerno magaalada qaybaheeda kala duwan marka qaybo badan baanu soo marnay waxaanu hadda rabnaa inaanu ilaa beritii wixii ka dambeeyana aanu howlgalkeena
qorshaha ku darsanno waxay ay isha aanu ku soo aragnay inaanu muxuu ahaa qorshaha aanu xagga la tagayna ay noqoto runtii magaaladana aad bay u ballaaratay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dunuub yarida markaanu tagnay saldhigyada iyo rugaha magaaladan amnigeeda inuu sugan yahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo askarta booliiska ee ka howlgala maamul goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaaladan baydhabo oo ugu horeeya taliyaha qaybta guud ee koonfur galbeed taliyaha qaybta gobolka baay iyo saraakiisha la shaqaysa noocyaha kala duwan ee booliiska aanu halka ku aragnay oo aanu meel allaale meeshaanu maraynay amni sugan iyada oo muxuu ahaa daafaheeda ilaa muddo 2 saac ku dhow baan u malaynaya hadda inaanu ilaa dhinacaanu noo soconay ayna noo muuqatay amnigu siduu u sugan yahay dadku siduu u ganacsanayo sida la isu dhex marayo sida muxuu ahaa dibadii gudaba dalka looga imaanayo magaalada axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq raadiyo kulmiye baydhabo dhegeystayaal warka habeenimo waxaad ka dhegeysateen idaacaddan kulmiye qodobadiisa caalamka markan kusoo dhawaada dowladda yemen ee caalamku aqoonsan yahay falaagada xootiyiinta ayaa ku heshiiyey inay isdhaafsadaan ku dhowaad 1,000 maxaabiis ah kuwa ay ku jiraan 15 u dhashay dalka Sacuudiga ergeyga Yemen u qaabilsan qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa u sheegay saxaafadda in si shakhsiyan ahaan ay ugu faraxsan yihiin in la gaaro heshiiskan muhiimka ahi dowladda Yemen oo ay taageerayaan isbahaysiga militariga Sacuudi hogaaminaya xootiyiinta Yemen ayaa kala saxiixday heshiis ay isku wadaarsanayaan ilaa 15,000 oo maxaabiis ah sanadka 2018 balse heshiiskaas ayaa ahaa mid loo fulinayo si tartiib ahi talaabadan ayaa ka mid ah mid dib loogu dhisayo kalsoonida iyo dadaalada lagu soo nooleynayo geedi socodka